Kani waa muuqaal iidheh ah oo ay leedahay shirkadda Amazon waxa uu muujinayaa awoodda ay leedahay tiknoolajiyadooda wejiga aqoonsanaysa laakiin magaalada San Francisco ayaa iyadu diiday hal abuurkan sidan ah oo ay ku tilmaantay mid aan sharci ahayn waxaana halkaasi lagu ansixiyay xeer aqlabiyad ballaadhan ah oo ay ugu codeeyeen maamulayaasha magaaladu xukunkan muhiimka ah ayaa haddana waxa uu dhigayaa sharci darro in ay hay'adaha dawladda gaar ahaan kuwa sharciga fulinaya ay isticmaalaan nidaamka wejiga aqoonsanaya amaba ay iibsadaan nidaam dusha kala soconaya dadka oo la mida noocaasi sharcigani ma noqon doono mid lagu dabaqo dekedda iyo weliba eerboodyada magaalada kuwaas oo ay iyaga mas'uuliyadooda leedahay dawladda federaalku xeerkan ayaa haddaba waxa soo dhaweeyay dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha waa hab aad u khatar badan haddii la isticmaalo sababtoo ah dawladdu waxa uu ogolaanayaa inay hesho meesha aad joogto meesha aad tegayso iyo xataa cidda aad la joogto waxaa jira warwar laga qabo in tiknoolajiyadani ay tahay mid aan la isku halayn karin mararka qaar gaar ahaanna marka ay ku beegan tahay dumarka iyo dadka midabka madow kuwa iyagu ka soo horjeeda tallaabadan ayaa waxa ay sheegayaan inay aqoonsan yihiin khaladaadkaasi jira laakiin waxay yidhaahdeen tiknoolajiyaddu horumar ayay samaynaysaa waxaanay noqon doontaa wax loo isticmaalo fayaqabka dadka haddii loo isticmaalo si mas'uuliyadi ku jirto waxaanay sheegeen in albaabku u furnaado fursadaha jira waxa mudan iyadana in la tilmaamo in go'aankan lagu gaadhay xarunta tiknoolajiyadda ee Mareykanka laakiinse magaaladani waxay isu aragtaa magaalo horseed ah bal in ay keento doodo ku saabsan waxyaabaha laga yeelayo mustaqbalka